iyadoo lagu jiro bisha barakaysan ee Ramadaan tahayna bil looga bartay in la caawiyo bulshada ama dadka baahan haya waxa maanta maamulka magaalada Dhagaxbuur oo kaashanaya qurba joogta u dhalatay magaalada 120 qoys oo dan yar ah u qaybiyay raashinka noocyadiisa kala duwan deeqdan raashinkan oo qayb ka ah barnaamijka afur walaalkaaga baahan haya qoysaska naga soo kala xuray xaafadaha maamulka magaalada Dhagaxbuur hadaba waxa si faahfaahsan nooga warbixiyay duqa maamulka magaalada Dhagaxbuur mudane Bashiir Yuusuf iyo gudoomiyaha golaha sare arrimaha islaamka maamulka magaalada Sheekh Bashiir Maxamuud Xasan waxaan dhex joognaa magaalada Dhagaxbuur barxadii weyneed ee Ugaas Maxamuud ayaan taaganahay gadaashayda waxaa idinka muuqda 120 qoys oo raashin ka kooban bariis daqiiq saliid iyo sonkor iyo timir aanu maanta u qaybinay lacagta raashinka lagu qaybiyay waxaa soo diray oo ka qayb galay barnaamijka afuri walaalka dhalinyaro joogta wadanka Mareykanka magacyadooda halkan kuma wada xusi karo runtii aad bay u badan yihiin waxaan markii horeysa dhalinyarada u sheegaynaa amaanadii aad noo dhiibteen oo aan annaguna ku sii daray in kale amaano ahoo xilka iyo waajibaadka saaran uu keenayo maanta halkan aan ku qaybinay maalin Jimcaha bishii barakeysanida Ramadaan lagu jiraa Ilaahay wuxuu noo waafajiyay inaan dadka 120 qoys aan qaybino waxaan noo dhiman ilaa 20 qoys oo kale inaan dib ugu raadino haddana oo saan isleenahay lacag ay dhalinyaradaas ballan qaadeen markayna soo gaadhay ilaa 20 qoys baan qiyaastayda noqonaysaa inaan bixinayno macnaheedu waxa weeye 140 qoys baa marka sidaas raashin dhameystiran lagu siiyay bisha barakeysan ee Ramadaanta dhalinyaradaas iyo dadka wax soo diray aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa Ilaahay idin barakeeyo dhafoorka dadka markaad aragtaan waxaan rajaynayaa inaad wax badan oo kale oo waxtar soo sameyn doontaan dhalinyaradii soo saartay ee soo xushay culimada magaalada oo hadda uu Sheekh Bashiir nagala joogo dhamaantood aan u mahad celinayaa inay hawshan nagu garab galaan aad iyo aad baad walaalayaal u mahadsantihiin ummadaan isu naxaynin isu naxariisanaynin waxba aan is siinaynin inteeda baahan aan ogeyni ummad islaam ma aha haddii idinka aad maaragtay meel wanaagsan joogtaan oo aydan duruuftan qalafsan maanta ku nooleyn inaad soo xasuusataan walaaladiina wax fiican weeye inta baahan in la ogaadaa mar walba way fiican tahay waxayna sii wacan tahay waqtiyadan munaasabadahan ciidaha ay dhow yihiin ama bisha barakeysan lagu jiro oo kale duruufaha qalafsan ee abaaraha baa jira iyo baahi aan la soo koobi karin dadka ha la ogaado aad iyo aad wad u mahadsantihiin lacagta sida maayirku noo sheegay 3500 waxay ka timid Mareykanka ka timid 2000 oo dollar isaga ayaa ku daray oo mas'uuliyadda iyo kamaneedkiisa ayuu ka jafjafay isagoo u diirnaxaya dadka uu la nool yahay ee uu mas'uulka ka yahay ee baahan ee jiilaalku halakeeyay lacagta 5500 ee dollar ayaa raashinka maanta lagu siiyay waxaan u ducaynayaa oo kale anoo dhalinyaradii hore Mareykanka u ducaynaya dadkooda iyo diinkooda iyo dalagooda Allah barakeeyo caruurta Allah ugu xifdiyo meelo waxay joogaan dhaqaale ay ka helayaan laakiin haddana cadaawad badan ku xeeran yahay caruurta iyo dhibaatooyin badan ay joogaan sida daraadeed waxaan Ilaahay uga baryaa inuu dadkooda iyo diinkooda Allah u xafido waxa kaloon aad ugu mahadnaqayaa dhalinyarada maamulka magaalada Dhagaxbuur ee sida xilkasnimada u soo qortay dadkan saaka aad baan ugu qiiroonay dhafoorkooda iyo qaabka iyo sida daacadnimada u soo xuleen waxaan leenahay walaalayaal sida maayirku yidhi aynu iskaashano oo ninkii waxayow kaan waxaynin wax si oo dalkeen iyo dadkeenaba aan dhisano wanaagaas aynu horumar ku gaaraynaa maayirka iyo kamaneedkiisa run ahaantii way dadaalayaan waxaa la idin tusayaa dugsigii Ugaas Maxamuud oo ugu yaraan 40 sano fasalladii dhisnaa maanta dayactir lagu samaynayo horumar wanaagsan baa ka socda aynu iskaashano muhiimaddu waxa weeye kolkaynu iskaashanaa Ilaahay ina kaalmeynaya daruur qurux badan baa nagu dul hoganaysa Ilaahay baa caawimadiisu ballaaran tahay inahaasaan oran lahaa dadkeen iyo diinkeen iyo dalageenna baa Allah barakeeyo khayrka Allah inagu kulmiyo midnimo iyo wadajir baan walaalayaal u baahannahay horumar wanaagsan iyo raaxaynu u baahannahay taasina waxay ku jirtaa inaynu inagu iskaashano inuu gacmaha isqabsano oo ninkii riyaal haya walaalkiisa aan haynin oo riyaalka siiyo wax la isoo hurayo aad baad u mahadsantiin gabagabadii waxa warbaahinta dareenkooda la wadaagay shacabka ay gargaarka walaaladooda fidiyeen waxaan u mahad celinayaa dhalinyarta magaalada gabdhiyo wiilalba culimaa diinka iyo maxaan ku dhahay maamulka magaalada dawladda dhamaantood anagoo raashin aan u baahnayn halkan maantana loogu qaybiyay oo qof kastaanba inta loo yimid xaafadiisa ay ka soo qoreen dhalinyartu ay noogu yimaadeen waxaa mahadsan macnaha wiilasha iyo dadkan abaabulkan iska lahaa iyo macnaha soo hirgeliyay waxaan keenay ee soo horay ee dadkooda damcay inay macnaha ay siiyaan Ramadaanadan anagoo laga yaabaa Ramadaan taa gashay inaan raashin ba qaadan maanta halkan loogu qaybiyay raashin aan aad ugu baahnayn
waxaan u mahadcelinayaa dadkii lacagtan soo ururiyey ee isu keenay ee inay raashin noo qaadaan rabadaanta oo macnaha noo hureen ayaa aad iyo aad u mahadsan maamulka magaalada iyo dhalinyarta siiba waliba si gaar ah in dhalinyartu way caawiyeen gurigayga iyo December aad bay u mahadsan yihiin soo caawiyaadii aad baan ugu ducaynaa aakhiriyadu ma ducaynaa kor Allah ka yeelo rasiid dambeysaba qarinkooda Allah barakeeyo halkay joogaan waxaan ku uri aakhiriyadu Allah ugu wanaajiyo dad masaakiin oo maanta walaalahooda iyo soo caawiyeen barigar badan soo xasuusteen iyagana Allah aakhiriyadu si fiican u wanaajiyo jannada la geeyo dadkii noo yimid ee guriga noogu yimid qoray iyo dadkii soo caawiyay dibadda iyo dalka naga soo caawiyay iyaan ma hanqana aad iyo aad barigarada fadligiisa wax qaar qaba Allah siiyo dadkooda iyo dunyadooda iyo Allah barakeeyo awlaadooda